bal meeshaan fiir islaantan oo dukaankan leh ayaa habeen walba waxaa dukaanka hor fadhiista oo hor jiifta ninkaani maskiinka ah. ninkii maskiinka ayuu imaanaysaa waxayna leedahay waryaha meeshan waxaa ku fadhiisiiyey meesha nooga hor dhaqaaq subax kasta halkan ayaan kugu imaadaa. wuxuu leeyahay margu aniga maxaan sameeyey, aniga halkan keliya waan fadhiyaa wax dhibaataana kuma samaynin. leedahay meesha iga hor dhaqaaq adiga haddaadan meeshaan eela lahayn kugumana si arki karo. ninkaasoo aad uga xun ayuu meesha iska fadhiyaa wana la murugaysan si ula dhaqmeeda naagtaani ganacsatada ah. wuxuuna la yaaban yahay habdhaqanka dadka lacagta leh ula dhaqmaan dadka masaakiinta ah. waa kana habeenkii ayay sii hoyaadaysaa. waxay arkeen ninkii oo meeshii fadhiya doonayeen inuu jiifto. markii meeshan ka tagto waxay leedahay adiga weli meeshaad fadhidaa soo kuma dhihin meeshan ka tag waryaa, aniga macaamiishida halkan ma imaanayaan adigoo jooga. waryaa adiga waxaa kaa qaldan nooga hor dhaqaaq. wuxuu leeyahay marwo aniga halkan waan fadhiistay qof meeshan galayana ma carqaladayn marka wax dhibaa maanan samayn ayuu leeyahay. bal fiirisada u eg tahay ma qof adiga ku arkaya ee dukaankan soo gelaya. haddaan meeshan beri kugu sii arko ogow waardiya ayaan kuu sheegaya aad fahantaa ayaan filaya taas ka dhaqaaq meesha waryaa. maalmo meesha ana iska dib ugu wareegtay ayay leedahay. ninkii aad buu uga xun yahay oo dhaqanka ula dhaqmeedo laakiin sheekada dib ayaa ka ogaa doontaa quruxdeed. bal wax yar aan isla daawano. subaxii ayay timid iyadoo labisano doonaysa inay dukaankeeda furato. waaba ninkii oo dukaankii hor jiifo biyo qabo way wadatay ayuu ku fadhinaysaa. ninka ayaa hurdada ka naxaya uu soo kacaya. waxaa qaldan ayuu leeyahay marwo waryaa meeshan xaa ku jiifi ayay leedahay soo kuma dhihi meeshan beri kuguma sii arki karo wax yar sug haddaan yaa waardiyaha kuu sheegaya. markaasuu wuxuu leeyahay waardiyaha wicin xaggeen aadaa aniga malihi meelaan jiifto meeshaan ayaan iska jiiftaa oon hooyaya. waryaa meesha rabta aad ayay leedahay aniga dukaankayga kuguma hor arki karo wax fahan haddii kale waan ku garaacaya ayay leedahay. ka dhaqaaq dukaankayga mar dambana kuguma arki karo. si aad u xun ayay loo dhaqmeeda naagtan. ninkaanoo duruufa ka muuqata ayaa ka hor dhaqaaqaya dukaankii. waxay fiirinay dukaankeeda shay ayay weynaysaa inuu meesha ka maqaya ayay arkeedaa. kadib way yaabaysaa. nin ayaa u soo gelaya maxaa qaldan ayuu leeyahay marwo maxaa dhacay. waxay leedahay shay baan tabayaa wax ayaa iga maqan ayay leedahay. way shakinaysaa. waxay leedahay ninkii tuugsada ee banaanka fadhiyey ayaan u malaynayaa ayay leedahay. ninkii banaanka ma fadhiyaa maya ayuu leeyahay marwo. waxay leedahay waxaan u malaynaya inuu isaga xaday ee ugu yar ninka waardiyaha ah. waardiyihii ayaa la doonay si loogu sheega arrintaani kadibna uu ninkaas u xiro. banaanka ayay soo istaagaysaa si uu fiirfiirado bal inay ninka aragto tuugsada ahaa. ninkii waardiya ayaa u imaanaya arrintii ayuu sheegaysaa. waxay leedahay dukaankayga waxbaan ka tabay habeen kastana meeshan waxaa fadhiisa nin tuugsada isaga ayaan u malaynayaa kaale ila raadi. ninka ayay raadinayaan wayna arkeen. waxay leedahay waa kana ninkii booliska ayaa soo ordaya waardiyaha. ninkii ayuuna qabanayaa. waxay leedahay waryaa isii waxaad xaday boorsadii laga xaday ayay arkay asagoo haysta. waryaa boorsadii adiga ayaa xaday miyaa ayay leedahay. kadib wuxuu leeyahay ma xadin. waxay leedahay adiga been baa sheegay. waxay leedahay askari ninkaan xabsiga geey ina xir. wuxuu leeyahay ninka askariga dhimalaan ayuu leeyahay ninka anaa sii xiraya laakiin adiga waxaa soo fiiridaa cc kaamiraha. naagtii way laabanee dukaankeeda ayuu ku laabanee. waxay dib u eegaysaa muuqaaladii duubeen cc kaamiraha ugu xiran dukaankeeda. waxayna arkeen nin tuuga oo gudaha usoo gelaya dukaankeeda kaas oo ka xadaya boorsadii ay meesha dhigatay. weliba waa nin afduuban. ninkii maskiinka ay ku eedeynaysay inuu xaday ma ahan bal fiiri ninkan ayaa wuxuu noqonayaa tuugsadaa ninka ka badbaadinaya boorsadeeda. sidaas ayayna gacanta ku soo gashay. ninkii tuugsada ayaa wuxuu arkaa ninkii dukaankii xalay dhacay ee boorsada kala baxay. ninkii tuugsada ayaa ka daba ordaya markuu ogaada ninkan inuu dukaanka wax kala soo baxay wuu ka daba ordayaa. weliba asagoo daruufa ka muuqato oo lugta jiidaya ninkii ayuu qabanayaa. boorsada ayuuna ka xoogayaa wuu ku isku dhejinayaa. xorkuga ayuu iska dhigaya wuu ka foq diidaya. ninkii tuuga hadda waa tuug wax ka fulaysan ma lahane wuu uga cararaya boorsadii asagoo ka foqaya. naagta ayaa waxay ogaanaysa inay ninka qalad kula dhaqantay oy si qalada ku geeday booliska. sidaas daraaddii ninkii booliska ayaa waxay leedahay waardi ninkaas dib u soo celi. waxaana leedahay igu keen dukaanka ayuu leeyahay. naagta way yaaban tahay qaladka ay sameeyday ayay ka murugaysan tahay. waxaana dib lagu keenayaa ninkii tuugsada ahaa. waxay leedahay xaqiiqdii aad baan ugu xumahay qaabkan kula dhaqma adiga wax maadaxdan ayay leedahay laakiin waxaa tahay qofkii badbaadiyey hantideyda ee fadlan iska kii caafi ayay leedahay. waan kaa sheekiyey oo dharkaaga duruufaysanaya ay qalday. waxaanan ku malaynayay ninka xaday hantideyda laakiin adiga sidaas ma ahayd qof wanaagsan ayaa tahay. kadib wuxuu leeyahay marwo anigu waan isku dayey si kasta inaan wax kugu sheego laakiin adigii maada dhegeysan. dadkiina lacagta lena ma dhegeysataan dadka masaakiinta ah. naagtii madaxa iyo fururinaysa waxay leedahay taasi waa sax aad baan ugu xumahay waan qalad aan galay waana kaa raaligelinayaa. waxaana doonayaa inaan dukaankayga ka shaqaydo weliba aan noqoto waardiyo. laakiin wuxuu leeyahay marwo aniga waardiyo ma noqon karo bal fiiri sidaan u egahay qofkan baa waardiyo laga dhigi karaa. waxay leedahay waxaa sameeyday xitaa waardiyo ma samayn karo. nafuurnimadii ugu dambeeyay ayaa sameeyday weliba maalin kasta aan kula dhaqmay si aad u xun. marka waxay leedahay naftaada sare u qaad waxaadna noqonaysaa waardiyaha meeshaani. wuxuu leeyahay marwo waan amaasan tahay waana kaa aqbalay waana noqonaya waardiyaha meeshaani. ninkii sida ayuu shaqo ku helay. naagtii ninkii aad bay u faraxsan yihiin. mar walba dadka faqiiriinta waxba haysan waxaan ka aaminsanahay in ay yihiin dad tuuga ah oo waa dhaca laakiin sidaas maahan waa dad
wanaagsan oo qalbi wanaagsan waa inaan bedelnaa hab fikirkan ka haysano dadka masaakiinta ah ee aan waxba haysan ee guryo la'aanta ah waa inaan bedelnaa fikirkeena taasi waa nuxurka sheekadeena maanta waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaal